بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فأقر سلام. Soomaaliya oo lagu sheego dal fashilmay kana soo kabanaya dagaaladii sokeeye waxaa lagu ammaanaa dadaalkooda ku aadan noocyada ganacsiga. Maalqabeennada ganacsatada ah ayaa waxay u kala qaybsamaan dhowr dabaq. Waxaa jira kuwa dakhligooda hooseeya iyo kuwa dakhligooda uu sarreeyo oo aas-aasay shirkado ganacsi oo kala duwan. Ganacsatadani waxaa sanadkiiba soo gala dakhli xad dhaaf ah oo marka xisaab ahaan loo eego lacagtooda noqonaysa ilaa 8 tiro, taasi oo lagu asteeyay maalqabeennada haysta malaayiinta dollar. Magacyada maalqabeennada ka soo jeeda Soomaaliya kama dhex sharqamaan maalqabeennada Afrika, waxaana laga yaabaa inaadan hadda ka hor maqlin magacyadooda. Majalada Forbes ee inta badan diiradda saarta arrimaha dhaqaalaha isla markaana galaangal u leh xogaha qarsoon ee taajiriinta milyaneerada ah ayaa waxay soo bandhigtay 5 qof ee ka soo jeeda Soomaaliya kuwaas oo ah kuwa ugu sarreeya hantida. Qofka ugu horeeya ee taajiriinta Soomaaliya ayaa wuxuu noqonayaa Cabdirashiid Ducaale. Waa madaxa fulinta shirkadda xawaalada ee Dahabshiil oo ah shirkad caalami ah oo in ka badan 24,000 xafiis ku leh 126 dal, waxaana u shaqeeya in ka badan 2,000 oo qof. Aabihiis ayaa la sheegay inuu ahaa aas-aasihii shirkadda ganacsiga Dahabshiil, isagoo dhidibada u taagay bilowgii sanadihii 1970. Cabdirashiid Ducaale oo 40 jir ah waxa uu haystaa dhalashada UK, waxayna xarunta dhexe ee shirkadda Dahabshiil ku taallaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Wargeyska Forbes waxa uu qoray in dakhliga shirkadda Dahabshiil ee sanadkii hore uu dhammaa 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Shirkadda Dahabshiil Group waxay kaloo leeyihiin bangi ganacsi oo ka howlgala gudaha Soomaaliya. Cabdirashiid Ducaale waxa uu leeyahay 95% saamiga guud ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Waxa kale uu hanti ku leeyahay magaalooyinka London, Dubai iyo Hargeysa. Qofka labaad ee ah kuwa ugu lacagta badan Soomaaliya ayaa wuxuu noqonayaa Cabdirasaaq Isaaq Iidow. Waa aasaasaha iyo saamileeda shirkadda isgaarsiinta ee National Telecom oo ah mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee ugu waaweyn gudaha Soomaaliya. Ganacsadahan waxa uu degan yahay magaalada Dubai, wuxuuna shirkadda National aasaasay sanadkii 1997. Shirkaddan ayaa bixisa adeegga taleefanada, moobilada, internetka, waxayna leedahay in ka badan 700,000 oo macaamiil. Qofka saddexaad ee ka mid ah dadka ugu hantida badan Soomaaliya ayaa waxaa magaciisa lagu magacaabaa Maxamed Abshir Cabdi. Waxa uu hantida uu haysta ka helay ganacsiga cuntada badda. Waxa uu leeyahay shirkadda kalluumeysiga ee Xaafuun oo uu aasaasay sanadkii 1992. Waxa uu kaalin weyn ka ciyaaraa dhoofinta, qaybinta, iibinta wax soo saarka cuntada badda sida argoostada, hilibka qallalan ee libaax badeedka. Sidoo kale shirkaddan ayaa waxay sanadkii soo gala dakhli ka badan 10 milyan oo dollar. Qofka afaraad ee ka mid ah kuwa Soomaalida ugu taajirsan ayaa waxaa magaciisa lagu magacaabaa Ismaaciil Axmed. Waa aas-aasaha iyo madaxa guud ee fulinta shirkadda xawaalada World Remit oo xaruntooda dhexe ku taalla magaalada London. World Remit waxay bixisaa ama waxay lacagaha xawaalada ku bixiyaan si online ah, waxayna macaamiisha u sahashaa sidii ay lacag ugu diri lahaayeen saaxiibadooda iyo qoysaskooda ku nool dalalka kale. Sanadkii 2015 hantida shirkadda World Remit waxa uu ka sara maray 100 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Qofka shanaad ee u dambeeya oo ka mid ah dadka Soomaalida ugu lacagta badan ayaa waxa magaceeda noqonaysaa Aamina Mooge Xirsi. Waalidkeeda waxay ahaayeen socoto ka soo tahriibay Soomaaliya, waxayna degeen degmada Bungoma ee galbeedka dalka Kenya. Aamina waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay Bungoma. Markii ay kortay waxay ka shaqayn jirtay bakhaar ay hooyadeed ku leedahay gudaha dalka Uganda. Aamina Xirsi oo 64 jir ah waxay haatan milkiid ahaan u leedahay qaar ka mid ah dhismayaasha real estate ee magaalada Kampala oo ay ka mid yihiin dhismaha ganacsiga ee Asian Shopping Mall iyo hoteelka Labram Cortes. Waxa ay kaloo leedahay warshad soo saarta sokorta ee lagu magacaabo Ataik Sugar Factory.
waxay kaloo 120 milyan oo dollar